بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان وحان أدوبيا كان دونيا إني هرجليان وصفي عن وشقيان مسحف كدقن كيهداها الصومالية من صوت قلبت عليكم وحان كقبرنا شيكو دقن مركو هوري وحان جعلهاي أنا قصان أقوى إن لي إلى فهمه كلمة دقن dhaqan waa dha iyo qa iyo na kaliya ku jirta haddaan dhacda ka bilaabo waa dhisan quman nidaamkayagu mugtahay haddaan nacda ka soo bilaabona waa nidaam quman dhisan waxaan aaminsanahay luqadda Soomaaligu mar in looga shaqeeyay sida luqadda Ingiriiska hadda looga shaqeeyo adduunku isticmaalo وانا اوهيا راد لغة الصوماليغو اما افكا الصوماليغو وقديم waxaa la oran karaa aabaha hooyada luqadaha dunida waxa ka maraga anigu cid walba luqadeeda waa karaa xarfaha ay ku hadashana waa karaa laakiin Soomaaligu dad badan baan wada sixi karin sida a iyo ha iyo qa iyo qoyn qaaf iyo qoyn qa iyo kha ala ay hal waxaan ka soo bilaabayaa dhaqanka Soomaaliya qaybta hogaaminta waxa laga helayaa hees hawleedada kuwa xoolaha lagu kaxayo kuwa hamaha lagu lulo kuwa dirmooyinka lagu tolo kuwa masangada lagu tumo kuwa awrta lagu raro kuwa xaraha lagu kaxayo iyo maqash waa hogaamin qaybta ugu sareysa ee binu aadan wax kala dhexbixi karo baan anigu aqaan sabab waxa ka soo qaadaa reer miyi oo saaka guuray 6 saac oo maalinimo maqasho meelaha iyo xaraha iyo caruurtu waa socon weyda marka hooya u heesta hees leeyahay hees hawle bay leedahay oo heesta xaraha heesta maqasha dalay hanalo dagoy oo dagoy waa onayey naroriyoy roriyoy gajoonayey joonayey gel nolisoy berigediyey gediyey bana barahey biyo qaadashoy maqaley warlaay ma lagu waramay waxa weerar dhacay waxa wiil la dilay waxa wanan la qalay yaa ii waramay ma walaalkayba webiga gaasariyo waa heenkay waxaro wax la sheeg qansaxdaata la sheeg qaran qubata la sheeg xamur xayana la sheeg wax la sheegyo wax la sheeliba mayn haddii la fahmi lahaa hees hawleeda cilmiga hogaamineed oo ku dhex jira oo dhalinyarada Soomaaliyeed loo oran lahaa maqalay warlay ma lagu waramay waxaro wax la sheeg qansaxdaata la sheeg qaran qubata la sheeg xamur xayana la sheeg haddii dhalinyarada la dhihi lahaa dhalinyaro wax la sheeg badoo buuxda la sheeg biri laacay la sheeg wabiyaal burqanaya la sheeg batrool jiifa la sheeg dahab buuraha yaala la sheeg khayr oo dhan la sheeg isu kale waa shaqaysanayna oo waxa la yiraahdo jahayn lagu sameeyo oo laga duwo wadada reer hebel wasiirkayaga maareeyahayaga agaasimahayaga xildhibaankayaga waxayaga ilaa baabuur qof leeyahay la yiraahdo baabuurkayaga eeg dhaqankii baan wali ku jiraa iyo heesawleedii nin baa wuxuu rarayaa reer rati dhaana buucaal keenay xalay buu soo guurayay maanta barqadii uu yimi duurkii uu rarayaa moogta dheegsiman labadaada dheegsiman midna dhaafi maayo ka sokaan dhawaan biday inaan kugu dhifta hamoodina waa kugula soo dhacay aan leey dhalay habeenkii adna lagu dhaqaaleeyaa dhibba la iska meel dhigay
caloolgood caynsane caloolgood caynsane caloolgood sida caynku ku gubayaa cagtu idoosha maraa ruuglow marmariyo maraa ruuglow marmariyo maraa ruuglow meegaa gabaaraad buu micido u lisaya saarar waaweyn kayma saarar waaweyn kayma saarar waaweyn saymuhu ballayeen sabarada caleen kule baa sariigan doontaa oho moogtahay saa buu soconaya eeg habeenkii aan lay dhalay adna lagu dhaqaaleeyey baa dhibba layska meel dhigay ninka ku heesaya wuxuu ahaa nin dhaqan oo baadiye jooga oo geela iyo ariga iyo awrta ka shaqeeya laakiin muxuu u sheegay ratiga waratiyahow habeenkii aniga lay dhalay oo kurrimo la ii bilaabay oo heerkaa la soo gaarsiiyey adna lagu dhaqaaleeyey oo kuwii da'da kula dhashay waa la gowracay gowraca laga daayey yah baa dhibba layska meel dhigay oo innaga laynoo diyaarsaday inaan hawshaan qabanno hay dhigeeda maxaa noqon lahaa maanta waxaa noqon lahaa wiilka ama gabadha loo bilaabay primary school ilaa heer jaamacadeed la waday cilmi bartay wax badan akhristay yah inuu fahmo siduu ugu dabaqi lahaa dalkiisa iyo horumarkiisa oo wiilka jaamacadda ka soo baxay oo saa u xaragoonaya maxaa baratay management maxaa baratay dhaqaale maxaa baratay computer yah waxaa laga rabay inuu intuu marada madaxa ku xirto oo cagafta fuulo oo dooxooyinka webiga agtiisa ku sii daayo iyo buraha aan leegdhalay habeenkii aan leegdhalay habeenkii aan leegdhalay adna lagu dhaqaaleeya dhibba layska meel dhigay beertaan waa inaan soo saaraa cilmigu waa inuu ahaan lahaa inuu ku fekeri lahaa siduu u abuuri lahaa beero siduu u soo saari lahaa macdan siduu u horumarin lahaa dalkiisa siduu uga furan lahaa xilka waaridkii waxaan uu ku soo dhibtooday oo waaridkii ku soo dhibtooday siduu ugu abaalgudi karaa ma ugu abaalgudi karo management baan bartay sababtoo ah xafiisyada Soomaaliya waa wax kooban dhaqaalaan bartay oo xagee yaala dhaqaalihi la abuuro soo lama rabo inaad beerihii iyo macdantii iyo baddii soo saartaan inaad birta laabtaan inaad alwaaxda qortaan intaad turki uga yeelan lahaydeen maantay niman idiin sameeya furniture geelow geedaha hoos u dhigo dowlad iyo dhalinyaro kulligiin dhaqankiina dib u fiirsha wuxuu idiin sameeyey sahan fiican moogta fiiri ratiga ninka saa ugu heesaya mid baa dhinaciisa ka radaya isaguna muxuu leeyahay moogtahay gararac leedahay maxuu gibil dhibaysaa maanigaa ku gowracay gogaagaan wax saaraya juu moogtahay kama dhalan geelayga kama dhalan gacalkayna ima siin wiil gabar garaar gooyaa guduudow laga helay marka kaas muxuu matalayaa hogaamiye xun oo aan cidna ka baqayn cidina la xisaabtamayn barqa iska xoogay wuxuu doona sameynaya kan kalena wuxuu matalayay hogaamiye fiican oo ratigiisa u waramaya eeg halka maxaa ka arkaysa ummaddu inay dhaqankeena dhigaya oo dawladaysan dadka in loo waramo maxay ku maamaayeen war la heliyaaba tala la haye fiidkii waa loo yimi oo laga tali waa bariyaba barkhadi qabuur hay salaadii baa loo yimi iyadoo aan soo ka kicin oo laga tali wuxuu yiri kii hore wuxuu yiri maqribkii wuxuu yiri talo reer la soo gashay hay fiidkii baa loo yimi waa bariyaba barkhadi qabay war hortaan soo kacno wax lagu soo kaco hay kii soo kacay baa loo yimi war la heliyaaba tala la helbuyo eeg waxaanu waxa cilmi hooyadeena soo badhay baynu maanta Yurub iyo Ameerika iyo ka raadinaynaa meelan waxba inoo ku jirin kula dhaqanahayn kula diinahayn kula qorshahayn dhaqanku waa dhaqan eeg wax badan oo bulshada Soomaaliyeed ay wax kale u taqaan baan anigu wax kale u aqaan dhaqan hadda waa aniga akhriyo yiri waxaan u aqaan lisan umman nidaam waxaan leenahay waa lagu faanaa saddex xaraf kaliya aan ku faani lahayn waxaan leenahay nidaam umman oo dhisan baan leenahay moogtahay nidaam qumman oo dhisan waxaan leenahay dhaqan la xulay ku salaysan diinta islaamka la shiilay qiimo leh moogta way faanku wayna dhaqan dadii marka abkeen dhaqan buu lahaa xeer uu dhigtay buu lahaa hab uu dhowrtuu lahaa
ku dhaqan sharci buu lahaa caqiido dhabuu lahaa ya dhammaan gacal buu ahaa martiya dhexmar buu lahaa dhowrtiya sadaquu lahaa dhiibaan sikhiyuu lahaa loo dheelmado buu lahaa dhabcaal go-an buu lahaa la dheeg maro buu lahaa dhexyaal taliyuu lahaa dhammeeye gafkuu lahaa moogtahay shiikh dhowrsoon buu lahaa loo dhiibo xaquu lahaa maantana waxa way idin kale shiikhiina keensada annagana shiikhayaga moogta ya ilaahu nabadbaadi shiikh dhowrsoon buu lahaa loo dhiibo xaquu lahaa doob dhaashoo buu lahaa mid dhoombira buu lahaa dhimaa waxbashuu lahaa dhabqalalooduu lahaa dhac iyo dhimashuu lahaa dhabaqe erey buu lahaa dhaqmaad dumar buu lahaa dhooley gabar buu lahaa moogta madhaafaanuu lahaa moogta dhimaa waxbashuu lahaa dhac iyo dhimashuu lahaa dhabaqe erey buu lahaa moogtahay dhabaqo erey bay ahayd ninkii dhahay bay ahayd ganaax dhigan bay lahayd dhaawacu dhugashuu lahaa dhibbaan la sinuu lahaa shiikh loo dhiibuu lahaa sakiyo dhogor buu ahaa wuxuu ka dhahay ahayd eeg qiimaha ugu hooseeya oo laga xukumo dhaawaca wuxuu ahaan jiray neef sake ah oo araya sako waa eesaan 2 jir ama 7 jir ama wax la mid ah ama mid 4 jir ama mid 3 jir oo aan wax iina lahayn sako dhogor haddii la yiraahdo waa geel ma tulud baa ma 2 ma 3 baa ma 4 baa waxa u badnaa 33 dubaaqo sakiyo dhogor buu lahaa wuxuu ka dhahay ahayd taasaa lagu qanciyey moogtahay dhungooyo hadday kas tahay diliin dhabdarra ana tahay qisaas dhiibay lahayd dhankeeda kalay lahayd wax boqol dheer bay lahayd si dhaahinta may lahayd daadaad guri bay lahayd dhoolay gabar bay lahayd dhismiyo guur bay lahayd eeg weynaan dhaagina dad yahow abkeen dhaqashuu lahaa dhabiil tabcashuu lahaa moogta ya abkeen dhaqashuu lahaa dhabiil tabcashuu lahaa moogtahay dad baynu ahayn moogta dhaqaalo gunluu lahaa isdheeli tiruu lahaa dhismiyi aqal buu lahaa moogtahay dhiil iyo udub buu lahaa dhoon iyo kalax buu lahaa han weynu dhaansadiyo dhiiloowo yar buu lahaa kuryaal dheeguu lahaa tabad u dhigantuu lahaa moogtahay dhar iyo xeeruu lahaa fandhaal dhumbisuu lahaa darfacas lagu dhuuqsadiyo jeexgogo la dhigtuu lahaa dhambaal ka yar buu lahaa moogtahay dhar iyo xeeruu lahaa fandhaal dhumbisuu lahaa murwadii dhidibtuu lahaa dhammaan tacabtuu lahaa dhistee gogashuu lahaa dhaydee asashuu lahaa dhaqaalaysuu lahaa ku dhaadan jirtuu lahaa haddana dhaaftuu lahaa wixii dhumay buu lahaa weynaan dhaagina dad yahow abkeen dhaqan buu lahaa moogta dhaqaalo gunluu lahaa moogta dheehiya dhabi buu lahaa dhinow saci buu lahaa gammaan dhowruu lahaa dhaashane faras buu lahaa dhab loo jeceliyuu lahaa cadaawo dhibtuu lahaa col soo dhowduu lahaa tuug soo dhakacduu lahaa moogtahay hubuu dhaqduu lahaa iskaga dhaciyuu lahaa buruu dhifsaduu lahaa dhaabane waran buu lahaa fallaar dhegaluu lahaa marid doobluu lahaa ninkii dhaqay buu lahaa hay marka waxaasoo dhaqanaa jiray waxaasoo nololaa jiray insha allahu wax badan baan idiin soo gudbin doonaa waana mahadsantihiin